مسؤولين تهير قرنية هير قبلية هير دقيقة واحد لبعض شرفت على حسب وطني هالك الفريق waxaan maanta jeclaan lahaa inaan shir jiraayad ku qabano xafiiska xisbiga wadani ee gobolka Awdal ujeedadiisuna ay tahay runtii propaganda iyo dacaayad raqiisa oo xisbiga kulmiye caadaystay inuu ka faafiyo gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland mid maxaa u dambeeyay baa leeyahay kala siisido habeenkii xalay waxa xaflad lagu qabtay dad gacan ku rimisa oo aan xisbiga wadani ka tirsanayn xisbiga kulmiye oo soo dhowdhoobay xaflad lagu qabtay leeyahay waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiye xisbiga wadani waxayna ku soo beereen xisbiga kulmiye annagu laakiin waxaan arkaynay haddana mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka iyo degmadaba kulmiye ku biirayana maalin walba aad arkaysaan arrintaasi waxay ku tahay ugub milgaha siyaasadda Soomaaliland xisaabta siyaasadda Soomaaliland waa ku cusubeen kulmiye ku biiraya waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo jecel qaranimada Soomaaliland in la ilaaliyo sharciyada waxa waddanka Soomaaliland uu qaran ku yahay waa sharcinimo hal laga waantoobo xisbi dhexdiisa inta laga soo aabalo dad la yiraahdo xisbiga ka soo baxeen waa kulmiye ku biiray arrintaasina maanta waxaan ku qahaynaa xafiiskayaga xisbiga wadani degmada Boorama shirka jiraayadu nuxurkiisa uu yahay inaan cadayno macna dad tira badan inta la soo ururiyay oo magaalada laga soo guray oo ah xisbiga kulmiye in hoolinka la isku geeyo la yiraahdo macna wadani way ka soo baxeen taas waa nasiib darro in la yiraahdo waxa ka soo baxeen xisbiga wadani waxaan cadaynaynaa xisbiga wadani waxa ka soo baxay in ilaahay wax tira ah dad jira way jiraan oo la shaqayn jiray oo nala socday oo xisbiga ku jira way jiraan oo tira yar laakiin waxa noqday xisbiga kulmiye shaydaankii wuxuu noqday ma taqaana intuu samada kelmadda runta ku soo maqlo 99 kale ee kelmadooda beenta ku dareeyay kiiba noqday xisbiga kulmiye hal qof baa matana ka iman karaya xisbi waxa uu ku darayaa 99 qof oo kale ku daray markaas oranay waxay ka soo dareereen ama ay ka soo baxeen xisbiga wadani taas waa been cad baan leenahay waa wax laga shaqeeyay waa abaabul maalmahan bal la waday aanan iska ogeyn hawsha ay wadaan ayna qabanayaan ma taqaana wax ay dadka ku mujahabaabinayaan markii ay ogaadeen xisbiga sidii loogu xoog badan yahay ee looga taageero badan yahay gobolka Awdal xisbiga kulmiye oo taageero badan yahay xisbiga wadani ay hawsha ay maalmaha ka shaqeynayeen taasina waa taasoo waxa kale oo sheegaya dhowrka qof ee ku jira la ma taqaana xisbigan ka baxnay xaqiiqatan dad nala shaqeynaya nala socday way jiraan wax la meesha ku socota meel buuxda waxaa culis xoogaa la saaray waxaan leenahay waxaas inaan ay ka tanaasulaan waa suuragal oo waxa weyn kulmiye waxba yaalin habluhu waraaqada xaafadaha loogu keenay markaas aad guuri la inagu ma arki karo waa loogu cagajugleeyay runtiina maxay ahayd habluhu shaqaalay ahaayeen sida darteed bay culeysku halka ka fuulay marka de laba daran mid door ayaa ku dhacday marka waxay xisbiga ay ka tagayeen ma jirto waxay cayeen maxay ahayd kale oo ay qalad kale oo xisbiga kaga hortimo taageernimada ee fayraska ee kulmiye ku dhex qaybiyay meesha dhexdeeda ayuun baa jirta wax kale oo dhibaato ma jirto xisbiga wadani waa wadanigiisii dadku waa dadkiisii markastana anagu waxaan kullayba hadana wadaninahay calaamadii maxay xisbinimo ee kalarkii baan eegaynaa laakiin fayraskaas baa jira lagu dhex qaybinaya reernimada kaasina waxaan leenahay ilaahay hanaga qabto xukuumadda noola timid waxaan halkan shirkeyga jaraayad u qabanay inaan kaga hadalno xalay dad la soo ururiyo la soo abaabulay oo xisbiga kulmiye ahaa oo la yiri waxay galeen wadani waxay galeen kulmiye dad la soo abaabulo marka horeba kulmiye ahaa kulmiye galaleeyay ayaa xalay xaflad loo qabtay waxaan halkan ka gudbinaynaa in dadkaasi wadani ahayna kulmiye ahayn markuu horeba waa nasiib darro in maanta xisbigii kulmiye markuu dad waayay oo intuu dadkiisii soo ururiyo uu yiraahdo waa la gelayaa xisbiga waa nasiib darro waxa nasiib darro kala maalintii ugu dambeysay ee xafladda qabtay Muuse Bixi wuxuu yiri abaarahan oo baxaynaayo wax dambe ma qabanayno xisbiga kulmiye isaga aan soo weyn badin kan yaa qabtay xalay ilaa abaaruhu ma dhamaadeen wali ma dhamaanin marka waxa leeyahay qolada war isku hayay inigu xisbinimadiina deena war isku haysan ba fiican